بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال halkan waxaan igala soo hadlaya Maxamed Xuseen walaalkeen Maxamed Xuseen oo dhabalkan iga soo diray magaalada Ottawa waddanka Canada intan dhabalkan walaal aan soo diray horta waxaan jeclaa inaan halkan salaan guud anoo ku hadlaya magaca walaaleena Afrikaanka iyo inteena kalaba inaan waa farxad doorashadii isbedelka dimuqraadiga ka dhacday waddanka Senegal guushana waxa iska leh walaaleena reer Senegal oo darba xagaarsiye mudane Cabdillaahi Wad oo inuu isku dayo rabay inuu dastuurka horjoogsado soo mar saddexaad ugu ceshado xukuumadda kolka guusha waxa la walaaleena reer Senegal annaguna waa la leenahay waa dariiq fiican waa dariiq dimuqraasi insha Allah wadanada inta kale hadhana Djibouti baato waan mari doonaa halka walaaleena reer Senegal ay mareen baan ku mari doonaa waana heli doonaana isbedel dimuqraasiya walaaleena reer Mali waa geeri iyo nagu dhacday xukunkii militariga ee ku dhacay dawladii si dimuqraadi loo soo doortay ay riday waa fashil baan nagu dhacay waxaana ka codsanaynaa askarta isku dayday inay burburiso dimuqraadi la soo dhisay inay socoto oo la soo celiyo xukuumadii aftida waddanka haysatay ee si dimuqraadi loo soo doortay in degdeg loo soo celiyaan ka doonana ayagana walaalayaal xageenu soo noqdo Djibouti walaasad ogtiinba waddankeenu maanta xaalad xun buu maraya sanadkii 2011 daaraadkii weynaa ee dhacay sanadkii dhaweyd kadib xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Geele si ay isku badbaadiso dib isugu noqotay عادو كلام رجع الشعب كبار كأنه ماشي هدي طول كفر بحدي قلقا حكوا عمل فلان حوق بشكتين عسكر بيكور جي يندتكي واحد صاب تمن سدي حكومة دوسي جوجنا حكم كان نوسي هيستنا فكرات داسي جلين قلقا حوق بيكو عمل فلان وحنا نقول هيستنا أفضوب تاكل وحكوا صابير مانتا إنه ودكيني ولا ليال وحكومة دايجرين qofna xakumin ay meeshii tahay baba cadaalad ma jirto maanta biyo ma jiraan kooraan ma jiro waxaana u soo biirtay xukuumad kasta oo baan aakhirataanka iyaga isku noqoto dhaxdooda sida waraabay maanta isku cunayaan qofna ma aamisano waddankeena ku dhex dhintay kolka annaka walaalayaal maxaa noo waajiba walaal wayna gunta xidhano oo kacno annagoo isku wada duuban xag shacib xag military iyo xagan dadka afka qalaad lagu yiraahdo society intellectual waxbarad wayna walaalayaal meel quraata wala joogsano iyo asxaabta diinta meel quraata wayna wala joogsano sidaan iskaga caydhino taliska mudane Ismaaciil Umar Geele waa saacadii iyo timiday kuma inaan ugu darna maahin waqti siyaada waayo haday nala sii dhaafto waddankeena ku burburaya waa waqtigeena oranay kifaaya haduu waddankeenu sidaa ku sii socdo walaalayaal wax kale xukun kale ma jiro waa xukun qabiilad ku dhisan musuqmaasuq ku dhisan lacagtu meedha looshisma daaqshan waxa dhaafka qalad taasay ku noolyihiin taana wadda walaalayaal lagu xukumi karayo kolka annaka waajibkeenu waa inaan sare kacno on niraano annakoo isku duuban mudane Ismaaciil Umar Geele way ka dhamaatay muftaxa waddanka iska soo celi guul waan gaadhaynaa waayo
dhibaato hadday noo taallo waajibkeega annaka hayno qof kale nooma maqno waddankeenna aayihiisa annaka u maqan reer Jabuuti waanad mahadsantihiin guulla waan gaadhaynaa ilaahayna una gargaariyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu